السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركله يانيغو عبد الولي محمد وماشاد كبرتان برشاد كمبيوتركا iyo sidoo kale multimedia haddaba muuqaalkani waxaan ku baran doonaa sidee ayaad u soo download garaysan kartaa Windows 11 si aan u soo download garaysano waxaan maraynaa saddexdan stepka koowaad waxaan ku sameynaynaa in aan ogaano internetka aan rabno inaan wax ku soo download garayno ma inoogu xiran yahay computerka ama ma inoo haystaa laba waxay inoogu xigi doonaa programkii aan rabnay inaan ku soo dejino midda saddexaad oo ah qaabka ugu fudud ee aan ku soo deji karno iyo in internetkeeni uu ahaado internet balance ah oo aan marnaba ka go'aynin ugu horreyn waxaa muhiim ah inaad hubiso internetkaaga speedkiisa waxaad furaysaa browserkii kugu jira computerkaaga anigu hadda waxaan isticmaalaa Microsoft Edge kaliya ayaad ku siinaysaa waxa inoo soo kacayo Microsoft Edge okay kadibna waxaan qoraynaa speed waad arkaysaa speedtest.net okay waxa ku soo furmaayo dialog boxkan kadibna waxaad dooranaysaa calaamadda go markii aad tiraahdo isla markii waxa ka arkaysaa inuu qaybta kore kugu keenayo Bing download iyo upload Bing oo ah bingaha oo wax ku soo qabanayo download oo ah faylkii aad rabtay inaad soo degsatid xawaare intee le'eg ayaad wax ku soo download garayn kartaa ama speed intee le'eg ayaad haysataa ama meeqa megabyte per second ayaad haysataa qofba sidoo u fahmi kara ha ku fasirto sidoo kale qaybtan kale waxaad ku arkaysaa uploaded waa markii aad fail upload garaynaysid aad qof u diraysid haddii uu ahaan lahaa muuqaal ama maqal ama images wax alaale wixii markaas aad rabtid inaad upload garayso haddii uu ahaan lahaa xitaa muuqaalada aad ku soo upload garaynaysid YouTube-ka waxaa arkaysaa bingaheena inuu inoo yahay 42 millisecond sidoo kale waxaad arkaysaa downloadkeena inuu inoo yahay 41 megabyte waxaan dareemaynaa downloadkeeni inuu fiican yahay uu khadkeenu yahay qad balance ah okay waan iska xireynaa wadada koowaad waan ogaanay in internet nagu filan aan haysano haddii ay dhacdo internetka kugu xiran computerkaaga uu khadkiisa culeys yahay downloadkaaga waa uu daahayaa maxaan sameynaynaa marka wadada labaad aad sameynaysid browserkii kugu jira computerka ayaad kicinaysaa kadibna qaybta searchingka qaybtaana ayaa waxaad ku qoraysaa programka lagu magacaabo Rufuska ayaad kaliya ku siinaysaa Rufus ayaad ku qoraysaa kaliya ayaad siinaysaa kadibna waxa ku soo baxaya page-ka ugu horeeya ee ku qoran tahay Rufus the official website kaliya ayaad ku siinaysaa kadibna waxaad tagaysaa qaybta taabka dambe programkan aad arkaysid waxa lagu magacaabaa Rufus wuxuuna ka caawinayaa operating systemka aad rabtid inaad ku duubatid flash ayaad awood u leedahay in asiga isticmaalaya in flashkaaga uu kaaga dhigo portable waa haddii laptopkaaga uusan lahayn DVD drive haddii uu DVD drive leeyahayna ISO-ga si direct ah ayaad ugu duubi kartaa balse haddii uusan computerkaagu lahayn DVD waxaad u baahan tahay in operating systemka ama Windows-ka aad rabtid inaad duubto aad ku isticmaasho flash inaad u isticmaasho programkan okay kadibna waxa halkan ku arkaysaa inuu kugu qoran yahay downloads kadibna waxa halkan ku arkaysaa inuu kugu qoran yahay Rufus 3.17 megabyte-kiisuna yahay 1.3 kaliya ayaad ku siinaysaa automatically waxa arkaysaa in aad arkaysid inuu downloadkii ku bilaabayo adiga kugu xiran tahay qaabkii aad u isticmaalaysid balse anaga waxaan isticmaalaynaa IDM waxaana u tilmaamaynaa destinationkii ama booska uu rabay inuu dhigo aniga waxaan dooranayaa desktopka kadibna waxaan leeyahay save kadibna waxaan leeyahay start waa arkaysaa downloadka way noo dhameeyay waayo waa 1.31 megabyte kan waan iska xireynaa oo uma baahnin kadibna waxaan iska xireynaa browserka waxa inoo yaala desktopka faylkii ee aan soo degsanay double click ayaad siinaysaa kadibna wuxuu ku keenayaa su'aasha Microsoft ee ah UAC oo loo yaqaano user account controlka kadibna waxaad leedahay yes markaad tiraahdo isla markii waxa ku soo baxaya dialog box haddii aad tahay qof hore u isticmaali jiray Rufus balse versionkaaga uusan ahayn 3.17 biltigiisa uu yahay 1846 waxa u baahan tahay inaad update garayso si aad u update garayso waxaad tagaysaa qaybta halkan ee ku qoran tahay show application setting kaliya ayaad ku siinaysaa waxa ku soo furmaayo dialog boxkan marka uu ku soo furmo kadibna waxaad dooranaysaa meeshan ay ku qoran tahay check now kaliya ayaad ku siinaysaa waxaad ogaanaysaa Rufuska aad isticmaalaysid in uu u baahan yahay update iyo inuusan u baahnayn haddii aad aragtid inuu automatically update ku keeno update garay si aad u hesho waxa soo socda
okay anaga hadda waxaan arkaynaa update-ka ugu dambeeyay inuu inoo jiro oo ah update-ka hadda aan isticmaalayno ayaa ugu dambeeyay wax soo baxa waqti xaadirkan ee aan duubayno muuqaalka kadib waxaad leedahay close kadibna kana waxaad iska leedahay close qaybta saddexaad ee laga raba ama qaybta labaad ee laga raba inaan soo degsano because of waxaan soo marnay laba step-ka koowaad oo ahayd in internetkeena aan hubinay step-ka labaad oo ahayd inaan soo degsanay programka Rufuska step-ka saddexaad wuxuu noqonayaa sidee ayaan ku soo download garaysanaynaa Windows 11 okay qaybtan waxaa ku arkaysaa selected dhinaciisa gacantaada midig falaarta qaybta hoose aadaysa ayaad kali ku siinaysaa kadibna waxaad dooranaysaa meeshan ay ku qoran tahay download kaliya ayaad ku siinaysaa kadibna waad arkaysaa meeshii selectigu ahayd inay isku bedeshay download kaliya ayaad ku siinaysaa isla markiina waxaa ku soo furmaayo qaybta scriptiga automatically waxaa arkaysaa inuu kuu keenayo dialog box oo ay ku qoran tahay versionka aad rabtid inaad soo degsatid Windowskiisa halkan waxaad ku arkaysaa inuu inoogu qoran yahay Windows 11 kaliya ma ahan inaad soo degsan kartid Windows 11 waxaad awood u leedahay inaad soo degsato haddii aad ishaan furto haddii uu ahaan lahaa Windows 7 8.1 10 ilaa iyo Windows 11 anaga hadda waxaan soo dejinaynaa Windows 11 kaliya ayaan ku siinaynaa waad arkaysaa waxa inoo dooran waa Windows 11 kadibna waxaan leenahay continue kadibna waxaa halkan ku arkaysaa release xilliga ugu dambeeya uu soo baxo waxaa dhici karto downloadka hadda anaga aan sameynayno iyo midka aad adiga sameynaysid inay u dhaxeeyaan taariikh yar kaas oo mar walba ay update-kooda ama build-gooda ay soo kordhinayaan waa arkaysaa waa 21H2 build numberkiisu yahay 22,000 waad arkaysaa 22,000 waad arkaysaa okay build numberkiisa uu sii yahay 194 waxaa dhici karta midkaad isticmaalaysid mid ka sii dambeeya inuu yahay balse anaga hadda midkaan isticmaalayna waa midkaan taariikhda uu soo baxay waa 2021 October kadibna waxaad leedahay continue kadibna waxaad dooranaysaa editionkii aad u baahan tahay halkan awood uma lihid inaad wax kala doorato balse waxaad awood u leedahay inaad soo degsato Windows 11 Home haddii uu ahaan lahaa iyo Pro oo hal xaba isku ah okay kaas ayaan dooranaynaa kadibna waxaan leenahay continue kadibna wuxuu kuu keenayaa luuqadii aad rabtid inaad ku soo download garaysato awood waad u leedahay inaad dooran karto luuqad alaala luuqadii aad jeceshahay haddii uu ahaan lahaa Arabic iyo luuqadaha kale balse aniga hadda waxaan dooranayaa English International kadibna waxaad leedahay continue markaad tiraahdid kadibna wuxuu kuu keenayaa systemka aad rabtid inaad ku duubtid ma 64-bit mise 32-bit haddaba waxaan kuu sheegayaa Windows 11 haddii aad rabto inaad ku shubato kombiyuutarkaaga ma qaadanayo 4GB oo RAM wixii ka hooseeyo kaliya wuxuu support gareyn karaa 4GB wixii ka badan si aan u xaqiijino waxaa halkan soo furaysaa isha waxaad arkaysaa inuusanba ku jirin 32-bit si fiican ayaa ila fahantay insha Allah okay anagu hadda waxaan dooranaynaa X64-bit kadibna waxaan leenahay download markii aad dhahdid isla markii wuxuu kuu keenayaa dialog box kaasoo aad u tilmaamaysid meesha aad rabtid inuu Windowskaaga uu kugu save gareeyo anigu hadda waxaan saaranayaa desktopka waxaana ku qoranayaa Windows 11 kadibna waxaan leeyahay save isla markii waxaad arkaysaa inuu inoo bilaabayo downloadka faylkana uu yahay 5.1 ama 5GB 104 megabyte meelahaasoo kale inuu yahay waan arkaynaa downloadkii inuu inoo socdo uu inoo dhamaynayo muuqaalkan muuqaalka xiga waxaanu ku baranaynaa sidee ayaad Windows 11 oo aad la soo degtay processkan adigoo maray aad ugu duubi kartaa flash waa uu ka dib badan yahay Windows 10ka waana uu ka fudud yahay Windows 10ka haddana isticmaalkiisa muhiimadda waxay ku xiran tahay qaabka aad adiga rabto inaad u fahanto haddii aad tahay qof xiiseynaya cashirkan fadlan la soco muuqaalka labaad ee aan soo gelin doono ugu dambeyn wixii aad raadinaysay waa aad heshay fadlan waxaanu kaa codsanaynaa inaad inoo subscribe garayso channelka sidoo kale aad inoo like garayso muuqaalkan iyo muuqaalada kale hana ka iloobin inaad doorato gambaleelka si aad u hesho cashir walba oo aan markaa soo gelino anigu waxaan ahay qofkii ku baray adiguna waxaad tahay qofkii bartay waa anigoo ah Cabdiweli Maxamed waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo cashirkeena xiga assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu